السلام عليكم غير شرفت له كحنا جنال كان كل لي تي في ان ما انت halka ku soo gudbinayna fariin aad u leeyahay badan oo laba maxbuus uga dhagax taagan xabsi laba maxbuus ayaa warqad hadalahayn abuurtay ku reebay xabsi ay ka baxsadeen saxaafadda Talyaaniga ayaa aad u hadlaysa sheekada laba maxbuus oo ku xirnaa jeelka Rabibiya kuwaas oo koor inta aanay ka baxsan xabsiga ku dhaafay warqad ay ku muujinayaan sababta ay uga baxsaneen xabsiga waxay sidoo kale ballan qaadeen inay dib ugu soo laaban doonaan xabsiga 2 toddobaad kadib labada maxbuus oo lagu kala magacaabo David Sukanovic oo 40 jir ah iyo Lil Ahmed Tofik oo 46 jir ah ayaa halgan adag dheer kadib ku guuleystay inay banaanka uga soo baxaan xabsiga laakiin sheekada la yaab kale ayaa waxay tahay inay sabab u yeeleen baxshadooda labada nin oo walaalo ah ayaa waxay sheegeen inay soo xalinayaan khilaaf ka dhex jira qoysaskooda balse ay soo laabanayaan marka ay soo xaliyaan khilaafka ka dhex jira qoysaskooda ayna dib ugu soo laaban doonaan xabsiga muddo 15 cishaa ayay qabsadeen inay ku soo laaban doonaan gudaha xabsiga balse ma cadeyn fulin doonaan balanta ay qaadeen iyo in kaleeto sidoo kaleeto hadalayn weyn ay dhalisay warqadan ay rag xabsiga u dhex tageen waana sheekadii ugu leeyabka badneed ee ka dhacday dalka Talyaaniga غير شرفت العديم وقال كان قنعيي لايك سارة شينا شير جريا جنال كان سكريب لها سيادو لا سoctaan muuqaalada dambe aan soo gali doono anagana ay nagu noqotay dhiirigelin oo janalku nagu karo waad mahadsantihiin maalin wanaagsan